السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سراكيش وصل سريس إيران أياب إسكن نقضيبا وح لامي إسكي ياليالبا وحا أسهلنا هذا إسرائيل إنay nafta dhaafiyaan warkii ugu dambeeyay Iran ay xaqiijisay sargaalkii ugu sareeyay dhinaca sirdoonka ninka la yiraahdo General Mohammed Qasimi ninkan odayga ah kaligiis nafta lama dhaafinin sidoo kale waxa la dilay saraakiil kale sida ay warbaahinta caalamku xaqiijinayaan baraha kala duwan ee Iran wararka u faafiyana waa ay xaqiijiyeen arinta yaab kale waxay tahay in ilaa iyo hadda aanan lahaynin weerarka Iran ay qaaday ee gugiciisa la joogi laayahay saraakiil sarsaro oo uga dhintay Israel dhankooda ama ay warbaahintu sheegaysaba hase yeeshee gantaalkii la ganaba waxa uu ku habsanayaa dhinaca Israa'iilkii ka baxayaan ka hadlaynay mas'uuliyiin sarsare oo Iran ah taas oo runtii aad loo fahmi laayahay hase yeeshee Iran ayaa dhinaca kale shaki weyn ka qabta in gudaha dalkeeda rag jooga ay la shaqeynayaan dhinaca sirdoonka Israel oo marka dhinaca sirdoonka laga hadlaayo sirdoonkooda uu kamid yahay kuwa ugu sareeya يعني تياهان موساد أناقو أيسا أمان نغا إهن لكن واسرتون تاريخ فوقله سيكاست هان نقطة إيران داداد أميرا وحا أي قبطي إلا يدور قاديد أو ودي شحنادو أي كبوحان قلب سيدا أيو شاقين أهدرون آنان دولياشا نوعا ودا أيسان هاي إسلا مركانا قرشوها إن إسلا قدها دالك إيران أي ويراكا لك جيستان إيران أولي jilbaha dhulka dhiganayso oo ay ka go'an tahay in aanan laga badinin ayaa hadda iyadu wada duqeymo xoogan waxaana dhankooda ay sheegayaan in duqeymahaasi ay waxyeelo ku gaarsiiyeen shakhsiyaad laakiin ilaa hadda aynay warbaahintu xaqiijinin waxa ay yihiin teetal ahaan wararkii ugu dambeeyay ee iska soo daba dhacaya ayaana runtii ku baahinay telegramka muuqaaladooda waxaana la arkayaa in Iran sirdoonkeeda ay hadda sheegeen in ay qabteen laba sargaal oo ka tirsanaa ciidanka sirdoonka ee la yiraahdo Mossad oo gudaha wadankooda ka howlgalayay waxa sidoo kale ay sheegeen warbaahinta Iran ka hadlayna xigashadan inay heleen qalabkan loogu talagalay in gudaha wadankaasi laga geysto weeraro ha noqdaan kuwo yani baabuur lagu rakibo ama ha noqdaan kuwo diyaarado kale loogu talagalay oo aan duuliye lahayn inay fuliyaan waxaana saarnaa culays dhan 200 oo gram walxahan oo la sheegay inay haayeen walxa qarxa ah dhinaca kale waxa warbaahinta qabsaday muuqaal aad runtii loo hadalhaayo oo muujinaya dad Israa'iiliyiin ah dhulka hoostiis ayaga iyo waliba bahaayinkii eyga ay wateen hoos galay si ay uga gabadaan madaafiicda qulqulaysa ee dhinaca Iran laga soo ganayo dhanka kale magaalada Haifa la yiraahdo ayaa aad u gubanaysa meel warshad ah ayaa waxa isqabsaday uuro markii ay Iran iyadoo dhankooda xaqiijisay inay gantaal ay la heleen oo halkaasi ay sidaas u gubatay warbaahinta afka dheer ee Al Jazeera la yiraahdo ayaa xaqiijisay warkaas sugnaanshihiisa wixii ka soo kordha Telegram. Salaam alaykum.